boqolaal dadweyne oo isaga kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada Boosaaso oo wata calamo iyo caleemo qoyan ayaa kaga hortagay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya banaanka magaalada halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay ka hor inta aanu soo galin gudaha Boosaaso. مسؤولينta gobolka degmada Yalaamaha Ammaanka ee gobolka Bari ayaa qayb ka ah soo dhaweynta xildhibaan Cabdiwali Gaas waxaana markii uu soo gaaray gudaha magaalada la dejiyay qasri loo diyaariyay kaasi oo uu kula hadlay warbaahinta kaga mahad celiyay imaanshihiisa Boosaaso. runtii farxad weyn bay ii tahay maanta inaan imaado caasimadda gobolka Bari ee Boosaaso ahna caasimadda ganacsiga ee gobolka Puntland inaan soo gaaro inaan idin imaado inaad iswaraysano soo dhaweyntiina aad baan uga mahadnaqayaa runtii aad bay farxad gelinaysaa sida walaaltinimada leh ehelnimada leh Soomaalinimada leh aad ii soo dhaweyseen gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamad Galan oo qayb ka ahaa mas'uuliyiintii soo dhaweysay ra'iisul wasaaraha ayaa dhankiisa ka hadlay dareenkiisa imaanshiyaha xildhibaan Cabdiwali ee Boosaaso. waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolka Bari Professor Cabdiwali Cali Gaas ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya hadeerna ah xildhibaan dawladda Soomaaliya isaga iyo wafdiga uu hogaaminayo ee balaaran waxaanu leenahay ku soo dhawaada gobolka Bari. qaar ka mid ah shacabka Boosaaso ayaa ka hadlay aragtidooda soo dhaweynta ay u sameeyeen ra'iisul wasaarihii hore ee dawladda federaalka haatanna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. ugu faraxsanahay haddaan nahay odayaasha gobolka Bari inaan ku soo dhaweyno dalkiisii ra'iisul wasaarihii horeeto hadda ahna hadeer xildhibaan ku jira dawladda federaalka waxaan leenahay ku soo dhawow dalkaaga weey. annagu haddaan nahay haweenka gobolka Bari aad baan u taageersanahay waana soo dhaweyn doonaa ra'iisul wasaarihii Soomaaliya awal hadda ninka Cabdiwali Cali Gaas aad baan u taageeranay xildhibaankaygana soo gaaray oo dhashay gobolka Bari. Hussein Xuska Somali Public Radio SBR Boosaaso.